madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo sugootiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ku hor sugootinta waxay shir jaraa'id ku qabteen garoonka ugu horeeyna madaxweynaha oo shirkani jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan sugootineynaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo booqasho 3 maalmood ku joogay deegaanka laakiin talahaan ilaa 5 maalmood gaaraysi boqosho ah oo rasmi ah noogu yimid waxaan aad ugu faraxsanahay in ra'iisul wasaaruhu noo yimaado oo nala joogo oo walaalnimada iyo isdhexgalka iyo wada shaqaynta dawladda Itoobiya dawladda Soomaaliya hormood uu ka noqonayo waxa kale oo ku faraxsanahay in deegaankanaga oo si gaar ah dawladda dalka Soomaaliya xiriir dhaqaaliye mid bulsho iyo mid amniba uu ka dhaxeeyo inuu yimaado oo nala arko oo muxuu ahaayay shaqooyinka la wada qaban doonay la dagaalanka argagixisada baraarujintii iyo wixii looga baahnaa uu ka geystay runtii aad baan ugu faraxsanahay dadkanagana deganaansho badan bay gelisay in ka go'an tahay dawladda Soomaaliya cusub inay al-shabaab meel saarto oo ay ummadda ka qabato taasoo runtii didila fiican ka abuurtay deegaankeena maadaama labada dal iyo labada dadba amnigoodu uu isku xiran yahay waxa kale oo aan aad ugu faraxsanahay inaan ra'iisul wasaaraha booqashadiisa xukuumad ahaan aan taageerno oo garab istaagno oo u muujino marka laga tago taageero moraal iyo dhiirigelin inaan si macniyana aan u taageerno oo aan garab istaagno muujinana taageerada aan u hayno dawladda xukuumadda Prime Minister Xamse iyo madaxweyne Xasan marka taageeradaas waxa ugu horeysa maanta dhibaatada ugu meesha ka dhacday Beledweyne oo ra'iisul wasaaruhu sii mari doono agab isugu jira daawooyin raashin shidaal iyo waxyaalihii kale baahida maanta taagan wax laga qaban lahaa inaan ra'iisul wasaaraha aan u sii dhiibayno oo uu la tagi doono insha Allah hadii alla yiraahdo waxa kale oo ra'iisul wasaaraha ku taageeraynaa isdhexgalkaas iyo walaalnimada anaga xoojinayna in xukuumaddiisa aanu siino ugu yaraan 100 arday oo iskoolashada sanadkan taasoo muddo 5 sano socon doonta hadii alla yiraahdo macnaheedu waxa weeye sanadka 100 baan siinaynaa laakiin 5 sano ama 4 sano soo socota inta anagu hadda aan noo dhamaanayso termkanagu inaan si joogto ah arday Soomaaliyeed uga faa'iideyno jaamacadaha deegaanka ku jira iyo kuwa dalkaba scholarship laga siiyo marka kuwa hadda aan sheegay waa kuwa heer deegaan aan siinayno dalahaana inaan takhasusada faraha badan ee dadku u baahan yihiin inaan uga faa'iideyno jaamacadaha oo aan dawladda federaalka kala hadalno iyadana go'aan bay noo tahay marka ra'iisul wasaaraha aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay isfahankanagii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay jawiga cusub ee geeska Afrika ka bilowday ee walaalnimada iyo isdhexgalka iyo regional integrationka jira waxaanu leenahay muxuu ahaa iskaashigaasi Ilaahay ka dhigo mid miro dhala sanadkiisana waxaanu aaminsanahay ra'iisul wasaare inaad timaado deegaankan oo inta argagixisadii laga sifeeyay isdhexgalkii dadku ay ka hana qaadeen oo ganacsigii cirka uu maray inay ma doontaan rajeynayna waad mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa madaxweyne runtii adiga iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy iyo dhammaan shacabka guud ahaan reer Ethiopia gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka iyo xukuumadda deegaanka oo adigu madaxweynaha u tahay aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa muddadii runtii aan joogay soo dhaweynta iyo walaaltinimada iyo isfahamka runtii wanaagsan ee aad ii muujiseen aniga iyo wafdigii la socday iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed intaba aad iyo aad baan runtii kaaga mahadcelinayaa martigelinta wanaagsan soo dhaweynta wanaagsan kal iyo laab ah runtii muddadii aan joogay Jigjiga iyo intii ka sokaysay deegaankii aan soo maray oo dhan aan kala kulmaayay ilaa iyo saaka oo aad la sogotinaysaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay runtii si gaar ah madaxweyne arrimahaas waxa kale oo runtii idinku ammaanayaa idinku bogaadinayaa nabadgelyada sida ay u wanaagsan tahay deegaanka iyo horumarka baaxadda leh runtii soo aragnay ee ka jira dhulkan soo maraynay magaalooyinkii ugu horeyso magaalada Jigjiga ilaa Goday
oo aan hadda runtii dhex taagannahay airportkeedii marka waxaa ka jiray runtii horumar aanan sawiranayn markii hore ayaa ka jira waan kugu bokaadinayaa adiga iyo xukuumadda iyo shacabka deegaankaba runtii taasina waxay ku timid nabadda iyo iskaashiga iyo midnimada aad haysataan Allah idin siyaadiyo waxaan si gaara kaaga mahadcelinayaa madaxweyne adiga iyo dawladdaada iyo dawladda federaalka ee Ethiopia intaba sida aad nagu garab taagan tihiin aad runtii committed ugu tihiin inaad naga support gareysaan dagaalka culus ee aan kula jirno khawaarijta dhibaatada badan ku haysay muddada dheer dadka Soomaaliyeed oo dhiigooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda xalaashaday oo dhiig cabiya runtii boqolaal kun oo qof si arxan darraa u dilay maanta mahad ilaahay waxa xukuumadan aniga hogaamiyo iyo madaxweynuhu dabcan uu noogu madaxda yahay iyo shacabka Soomaaliyeedba waxaan go'aan ku gaarnay inaan dulmigaas inaan iska saarno dabcan processkaas wax fara badan ayaa ku baxay kuna bixi doona oo dad fara badan baa looga shahiiday kuwa kalena way ku shahiidi doonaan laakiin waxaan hubaa in laga adkaan doono waxaan runtii kaaga mahadcelinayaa taageerada ballaaran ee runtii aad noo muujiseen iyo midda dhabta ah ee aadna siiseen ay ugu horreyso dhinaca waxbarashada scholarshipkaas aadna siiseen oo socon doona aad iyo aad baad madaxweyne kaaga mahadcelinaynaa waana ka faa'iidaysanaynaa ilaahay idinkiisa waanan ugu hambalyaynayaa ardayda Soomaaliyeed inay heleen scholarship ay siiyeen walaalahood dawlad deegaanka Soomaaliyeed aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaa kale oo kaaga mahadcelinayaa runtii saboorka kale ee dhinaca la dagaalanka argagixisada ee aadna siiseen oo ugu horeysa gawaarida iyo arrimaha caafimaadka dawooyinka iyo runtii waxyaabaha kale ee muhiimka u ahaa shidaalka ugu daran oo ayagana runtii sidaad nooga saboor gareyseen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa deegaanadan dariska ah oo hadda ay ugu horeyso Hiiraan oo dagaal aad u adag u ka socdo waxaan rajaynayaa insha Allah in aad hiiladaas aad u hiiliseen guud ahaan dadka Soomaaliyeed ma halmaami doonaan gaar ahaan reer Hiiraan iyo reer Hirshabeellana ma halmaami doonaan ayagana abaalkeedana way idin hayaan waana ku mahadsantihiin kuwa kale insha Allah dhinaca Bakool dhinaca Gado ayagana hadii la yiraahdo aan ka bilaabi doonana hiiladaas oo kale aan ka baahalnahay waana siin doontaan waan hubaa waana support garayn doontaan inagoo wada jirna ayaana ka guuleysanaynaa si horumarkii iyo ganacsigii iyo isdhexgalkii bulshada walaalaha ay u bilaabato waana jirtaa laakiin cadawga aan uga dhex saarno si ay si xoog leh ay uga hirgasho oo uga dhaqaaqdo aad iyo aad madaxweyne mar kale kaaga mahadcelinayaa waan ku mahadsan tahay ugu dambeyn waxaan salaamayaa runtii anuu adiga ku marinaya dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ee deegaanka ku nool maalintaan nimid ilaa iyo saaka runtii banaanada taagnaa soo dhaweynayay na sharfayay odayaasha dhaqanka culimada gabdhaha dhalinyarada dhammaan runtii salaan qaali ayaan madaxweyne ku marinayaa waana salaamantiin kulligiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh